الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فيقول ربنا إلهي وحولي الذين كوي ويه يؤمنون بالغيب وحمقان بيرميان ويقيمون الصلاة صلاة نوي أوغان ومما رزقناهم ينفقون وحي آنو ku arsaaqnay macnaa wixii aanu xoolo iyo adduun siinayna yunfiquuna waxbay ka bixiyaan ammaan wey aladiina yu'minuuna bilghayb waa sifada ugu horeysa muuminiintu leeyihin marka haddaad aragto dadka oo ka shakisan qaybka qur-aanku sheegay qaybkii hore qaybka soo socda qaybka aakhiro dad ka shakisan haddaad aragto oo wiswisanoo cagataalaynaya iimaanku u qooman iimaankiisaa qooman casrigan aynu joogno dad badan baa ka hadlo oo idhaahda kaasi ma jiro jinku ma jiro malaa'igtu ma jiro janna ma jirto naari ma jirto oo iimaankoo qooman unbay sheegaysa ilan ilaahay baa ku ammaanay mu'miniinta inay qaybka rumeeyaan wa yuqiimuuna asalaa salaadana way ogaan dee diin la-aan weeye salaad la-aani dadku inay diintu u aloosan tahay oo diinta ay u heelan inay jecel yihiin oo ilaahay ku xidhan yihiin maxaa ka markhaatiya inay salaadu u aloosantahay oo ay u oogan tahay iqaamadu waxa weeye wayuqiimuuna asalaa salaaday xaqeedii marayaan ma kala hadha cibaadadayo way noocyo badan tahay xidhiidhka alle markay saa u wanaajiyeen xidhiidhka addoommahana way wanaajiyaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun mujtamac yatakaamal bacduhu bacdan wadada isdhamaystiraya oo isu gurmanaya oo iscaawinaya oo ku qanacsan walaalkiisa ag jooga haddaanu wax noqonin inaanu isaguna waxba noqonaynin takaaful ijtimaaciyay leeyihin oo isku xidhan yihin oo isxil qaadaan marka wixii aan siiyey wax ka bixiyaan baa ilaahay sakadii bay noqonaysa oo nafaqadii waajib masaariiftii waajibka ahayd bay noqonaysa oo sadaqadii sunnaha ahayd bay noqonaysa deeqdu ama waxa la bixiyaa marna waa waajib marna waa sunne labada qayboodba way noqonaysaa dhinac kolkaad ka eegto aayaddu waxay nagu dhiiri gelinaysaa waxaynu isugu adkayno waxaynu hayno inaanu jirinba leannahu laba arrimood baa taa inaga caawinayo marka hore dee waxaan ilaahay baa ina siiyey wa mima rasaqnaahum annagaa siinay baa ilaahay u leeyay adigu xoog iyo xirfadaad leedahay kumaad keenina waa cadiyo ilaahay uu ku siiye waxaad haysee xoola ah ee cilmiya ee cudud iyo awooda inta waxbaa laga bixiyaa marka labaad waxa ka saacidaya mintu eraygu waa tabciidiya wa mima razaqnaahum waa waxyar waxaad u fiirsatay sakada inta la inagu waajibiyey boqolkiiba 2 badh 790 iyo badhna waxa lagu hayso si kale hadii loo dhigo xoolahaaga 40 meelood loo qaybiyay ayaa lagu leeyahay meelna bix 39 hayso marka hunguri weynaanteena waxaynu sii eegaynaa midka 40aad ama 2 badhka ayaynu sii eegaynaa inta kale ma sii eegayna laakiin waxaan ahayd markaad isqancinayso shaydaanku wada wallahi dollarkiyo dahabkaad bixisay wuu badan yahay geelaad bixisay wuu badan yahay waxyaabaad ku qancinayso waxa kamid ah inaad tiraahdo inta ay hadhaaba ka daranba dad adigu inta ay tustay inta ay hadhay ayaa ka badanba inaad tiraahdaa muhiima wa mimma razaqnaahum yunfiquun marka bakhaylnimada dhabtahay waxa weeye wixii ilaahay uu ku siiyay waajibkiina aad ka bixin weyn hayya 'ala al-falah